warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran 27 bisha lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho warkaas oo runtii ahaa war dhinacyo kala duwan taabanaya oo sidaad aragteen de warmurtiyeed iyo lifaaqyo la socda iyo ka koobnaa marka madaxweynuhu wuxuu soo dhaweeyay waxa weeye doorashada qof iyo codka ah lagu baaqay ama heshiiska lagu gaaray taasoo runtii noqonaysa haddii ay waddankeena ka hirgasho mid aad iyo aad runtii dowladnimada inoogu dhaweynaysa marka muwaadinka Soomaaliyeed oo helo xaqa uu leeyahay ee dastuuriga ah oo ah inuu isagu doorto cidda uu ku aaminayo talada dalka waxa halka ka baxaya marka in midmadu uu soo kala dhex galo dawladda iyo shacabka tiirkaasna in la dumiyo weeye runtii waxa lagu dumin karana waxa weeye doorashadu inay noqoto doorasho hufan oo toos ah oo qof iyo cod ah waa ka wada dheregsanahay faa'iidooyinka ay leedahay doorashada qof iyo codka ah waxa kaloo aan ka wada dheregsanahay waxyeelada ay leedahay doorashada dadban ee dalkeena mooyaane aan adduunka laga aqoon oo dawladaha kale ay nagu wareeraan markaanu qabsanayno ee laaluushka iyo nintooxsiga iyo qof jeclaysiga iyo bareeraha cad ee laaluushka ah ku dhisan runtii intaa laga guuro oo aan u guurno doorasho qof iyo cod ah waa mabaadi'da waaweyn ee xisbiga nabad iyo nolol uu ku dhisan yahay mar walbana xisbiga waxa waajib ku ah inuu difaaco mabaadi'daas cidda wada annagu dad ma taageerayno laakiin waxaan taageernaa dee mabaadi principalka aad taageeraysaa muxuu yahay waa qof iyo cod hadda Puntland oo kale waxa ka dhacay in dad 500,000 ku siman ay practice gareeyaan ama ay si ficil ah ay u galaan doorasho qof iyo cod ah iyagoo xuquuqdoodii difaacanaya arrintaas waa arrin aad loogu farxo waana mabaadi'da xisbiga nabad iyo nolol uu ku faraxsan yahay inay waddanka ka hana qaado inkasta oo gobollo kale oo dalka ah ay iyaguna kaga horeeyeen oo si fiican oo aad u qurux badan ay uga dhacayeen waqooyiga Soomaaliya oo kale waxba la oran karaa iyagu aad bay u practice gareeyeen oo dhowr doorasho noocaas oo kale ay qabteen numberkuna uu ka badan yahay dadka isdiiwaan geliya inta hadda Puntland ka bilaabantay Puntland lafteedu waa bilow aad iyo aad u fiican oo la bogaadiyo waxa marka aan bogaadinayna waxa weeye waa awoodda shacabka ee dib ugu laabatay doorashada qof iyo codka ah kaliya haddii aan ku sii soconno kaliya faa'iido uma aha dadka gudaha jooga laakiin waa inaan ogaanaa dadkeena dibadda joogana faa'iido weyn bay u leedahay sidaan ognahayba haddii nidaam axsaabeed aan samaysano qof walba xisbiba ku biiri jeebka lacagta siyaasiyiinta jeebkooda waa la iskala tegayaa dadka Soomaaliyeed baa waxay ku darsanayaan doorashadii qayb waxay dareemayaan inay wax ku leeyihiin kadibna waxay maal gashanayaan fikradaha iyo dadka ay doonayaan inay u shaqeeyaan oo ay soo saartaan waxa kaloo ay yeelanayaan sida hadda Soomaaliya doorashada Turkiga aad bay indhaha ugu furtay inay codadkooda soo diraan oo dalkooda ay u codeeyaan oo cidda ay rabaan hoggaanka ilaahayna uu gaarsiin doonaa insha Allah marka xisbiga nabad iyo nolol mar walba waxa ka go'an in uu arrintaas qof iyo codka ah ay dalka ka hirgasho madaxweyne Farmaajo xilka markuu yimi 5 bilood markuu joogay bishii May 2017 arrintaas uu ka shaqeeyay qof iyo codka ah la taliyaal buu u xil saaray iyo team ka shaqeeya oo ku foogan inay arrinta xoog saaraan teamkaas waxa hogaaminaya Maxamed Cabdirasaaq oo markii dambena noqday wasiirka arrimaha dibadda oo la wada yaqaano ilaa ay soo gaarsiiyeen sanadka bacdi 2018 bishii May xasuustayda hadaan ay khaldan meelahaas ay ahayd in bayaan rasmi ah oo wada jir ah ay soo saaraan labada heer ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasoo dalka magaalada Baydhabo lagu heshiiyay in dalka la geliyo doorasho qof iyo cod ah laakiin waxaan ogeyn in dhibaatooyin xoog leh ay ka dambeeyeen runtiina aad loola dagaalamay in barnaamijkaas qof iyo codka la fashiliyo aakhiritaankiina
meel dhexaa la soo istaagay oo doorasho deegaan ah oo aad ogeydeen in magaalada Samareeb lagu gaaray heshiiskaas markii dambena waa tii la qaatay doorashada dadban ee laaluushka inkastoo madaxweyne Farmaajo uu ka gaabsaday inuu doorashooyinkaas wax lacaga ku bixiyo marka haddii maanta oo xukunka tiimka la joogaan ay mabda'aas doonayaan qof iyo cod inay hirgeliyaan waa lagu taageerayaa waana arrin wanaagsan maamul goboleedyada kuwa qabtay arrintaas waa ku taageersannahay kuwa doonaya runtii inay qabtaanna waa ku dhiirigelinaynaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed in loo soo dhaweeyo xuquuqdiisa doorashada waa mabda lama taabtaan ah oo runtii faa'iido weyn u leh dadkeena bayaanka qaybta labaad oo runtii aad muhiim u ah waana qaybta aan runtii dareemayo in warbaahinta qaar ay hoos u dhigeen waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah dalku wuxuu leeyahay shuruucda in la tixgeliyo weeye bayaankii soo baxay iyo warmurteedyadii soo baxay iyo lifaaqyadii waxa ku jiray qodobo si toos ah u taabanaya dastuurka ku meel gaarka aynu haysano marka waxa loo baahan yahay in arrintaas aad looga fiirsado maadaama oo la leeyahay ilaa 5 ilaa 4 bog oo dastuurka ah oo dhowr qodob ah anigu hadda markaan eegay ilaa 5 bog bay noqonayaan oo dastuurka ah iyay go'aamadaasi toos u taabanayaan qodobadaasi marka waxaa lagama maarmaan ah in markaas loo raadiyo dariiqa ugu saxsan kaas oo bayaankana ku xusnaa oo ah in wadar ogol la helo wadar ogol muxuu yahay de kulli aqoon-yahanadu waa nala joogaan Professor Cabdiwahaab waa nala joogaa uu noo faahfaahin doonaa insha Allah waana ka codsanayaa runtii inuu arrintaas faahfaahiyo wadar ogol waxa ugu horeeya dadweynaha bulshada Soomaaliyeed waa inay qayb ka noqdaan hawshan arrimo waaweyn baa ku xusan oo runtii wax ka bedelaya haykalka iyo qaab dhismeedka dawladda Soomaaliyeed marka arrintaas wadar ogolka dadweynuhu koobay ka noqonayaan sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo hawlahaas kalena waa iyaguna aad bay muhiim u yihiin oo runtii in la maro marka arrintaas dawladda ay u taallaa wax anaga hadda noo yaala inaan ka tala bixino mooyaane wax hadda noo yaala ma aha dawladda loo baahan yahay sidii ay dadka ugu qancin lahayd sida dadka loogu furi lahaa dadka loo fahansiin lahaa waayo durba waxaad aragtaa dadku waxay yaqaaneen ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku yimaadaa awood qaybsi marka haddii aan aadayno nidaam ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxa loo baahan yahay dadka in la fahansiiyo dadka in loo diyaariyo arrin aad u culus weeye oo dawladda hadda hor taala durba waxaad moodaa dadku inay u arkayaan madaxweyne ku xigeenku inuu yahay waxaan macna badan lahayn waxa la rabaa in la fahansiiyo madaxweyne ku xigeen hadii dalka uu qaadanayo inuu waxa uu yahay madaxweyne ku xigeenku waa in aad loo fahmaa maxaa looga tagayaa nidaamkan ra'iisul wasaaraha oo systemka madaxtooyada loo wada qaadanaya yani dadka in aad loogu sharaxo dadka la fahansiiyo weeye oo aad loo fahansiiyo waxa kale oo ognahay dawlad goboleedka Puntland oo ah yani hooyada federaalka oo xaqiiq runtii ay tahay arrintaasi inay ka maqan yihiin iyaguna go'aamadan oo aanay saxiix ku lahayn arrintaasna runtii dawladda looga baahan yahay inay arrintan ka shaqeyso oo ay dheerindhiriso wax runtii anaga noo taala maaha laakiin mowqifka nabad iyo nolol iyo mowqifka madaxweyne Farmaajo uu cad yahay waxa weeye arrimahaas waxa kaliya ee lagaga bixi karo waa wadar ogol wadar ogolkuna waa barnaamij runtii ama waa arrin dadaal xoog la uga baahan dawladda inay geliso runtiina waa lagu garab taagan yahay haddii ay ka shaqaynayaan arrintaas oo dadweynaha idinku aad ugu horeysaan dadka Soomaaliyeed ee halkan caawa aan ka wada hadlayno يعني حقوق ذا أدلين وحوي أنا أتوقع عدان dalkiina markuu isbedelayo qaab dhismeedkii dawladda oo dhan markay isbedelayo waxa ku leedihiin doorkiina iyo xuquuqdiina yani bulshada rayidka waa muhiim aad bay muhiim u yihiin marka anigu kulay inahaasaan kusoo koobaya intii aan odhan lahaa arrinta ku saabsan mabaadi'da xisbiga nabad iyo nolol
وعاود كل أرنتن هنا كخصي سقفي عض وأي ويدين كرتان ديارنا وهاي لكن وحي كسابسن دولته مدرشو هشيس كان أي صوص عرتي سيدي أيوه رجلين لهاي أرنتاس دولته أطالع وحن مهرجليا مهرجلينا أخوياك الصوماليين بتاعك شوابيات وما سنتين رالي هذا هدي أنا دودي ريه ما نقول أنا أدي هذا ما سنتهي إن بروفيسور يا شيخ حرسي لبدي نبل إساسية إنه حنجعلان لها إن ماشي كسي ودان مركي ما أنت تويت كصور دعي إن أنا أقول لما سعون فكرة ugu horeyso iyo aragtida horeyso wuxuu ahaa mid aan aniga isweydiyo oo aan ka canaaqay markaan mar labaad aqriyin waxyaabo sawiro kala ii soo baxay sideed adinka u aragteen waxaan u malaynaa horta mi maqashaan si fiican okay horta bayaanka waan akhriyay waxay ku qormaana waan arkay bayaankan waxaa ku qoran waxyaabo oo macnaha yacni dastuurka taabanaya oo runtii aysan go-aan keliya ka gaari karin qolooyinka masha ku shiray ee go-aanka ka soo saaray keliya go-aanka ma qaadan karaan waa go-aan u baahan baarlamaanka la geeyo oo amendment lagu sameeyo baarlamaanka ogolaado kadib dastuurka amendment lagu sameeyo Soomaaliya hadda waxay ku dhaqantaa dastuurka malgaar ah ama professional constitution ay ku dhaqantaa constitutionka naftigiisa qabyada ah waxaa loo dhammaystiri waayey oo ilaa 20 sano u socdaa taqriiban masleeyahay wadanka waa kala maqan yahay wadanka barba waxay sheegtay inay wadanka ka go'een oo ay xornimo qaateenba oo wadanka bay kamid ahayd ilaa 4 million people banaanka taagan oo dhaha anaga Soomaaliya kamid minhin marka intay dadku kala maqan yahay yani way adag tahay marka in la sameeyo dastuur la isku waafaqsan yahay haddana idoo taa ay sii jirtaa haddana ay Puntland meesha ka sii maqantay haddana idan waxa weeyaan Puntland idan waxa waaye go-aankan lasoo saaray qayb kama yahayn macnaa waddanka dhanaa kala maqanba dastuurna wuxuu dastuur noqon karaa dastuurka iminka la haysta wuxuu dastuur noqonayaa waddanka markuu midoobo oo markaa referendum la qaada oo gabadha Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed oo odayga Soomaaliyeed ama ay u codayaan ayuu dastuur noqonayaa haddana marka referendum loo qaadin dastuur ma noqonaya waxa kaliya hadda arinta lagu ansixin karo laba shay weeyaan mid wataan in sheegay waa in wadankii dib la isugu celiyaa oo macnaha yaani gobolada waqooyi ee goonigoostka ku dhawaaqay lagu qanciyo wadanka inay ka mid noqdaan labo in Puntland oo shirka ka qayb galin la soo celiyaa kadib marka lagu heshiiyaa constitution la soo wada ogol yahay oo mid Soomaaliyeed ogasha marka cod loo qaadaa taa mid weeyaan midda kale oo idin furan waxa weeyaan dastuurkii 1961 la ansixiyay oo min Raas Kamboni ilaa Raas Casayr loo codeeyay oo badda Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda xorta ay u codeysay in dastuurkaas yaani la restore gareeyo oo macnaha baarlamaanka uu dhaha midkaan ku meelgaarka waan tuurnay intaan isaga imaanayna anaga midkaan loo codeeyo xalaal ah cid tuurtan aanan garanayn oo cid laashi lama yaqaan waa la laalay wax laaleen lama garanayo kulli caadu Soomaaliya laalay in dastuurkan la soo celiyo waa baarlamaanka marka uu dastuurkan soo celsho maadaama uu dastuur xalaal u yahay loo codeeyo u yahay 1960 u yahay dad waxay dhahaan dastuurkan waqtigiisa dhamaaday dastuurka Faransiiska wuxuu jiraa waxa la ansixiyay xilliga kacaanka Faransiiska 1958 amendment lagu sameeyay dastuurka Mareykanka 200 sano jiraa wadanka la Masar dastuur ay ku samaysatay xilligii yani Xusni Mubaarak markii mashuu ka dagayay 3 bilood gudahood ku sameeyeen wadanka Morocco 14 bilood lagu sameeyay marka laakiin waxa way dadkii dhulka joogay oo codeeyeen afti baa loo qaaday sida loogu codeeyay marka midkan xalaal ma aha waayo wuxuu xalaal ku ahayn saddex shay mid waxa weeyaan dalkii oo kala maqnaan la sameeyay dalkii oo dalku keenin oo reconciliation aan la sameeynin oo dadka aan gacmaha la soo gelinaya la sameeyay tan labaad haddana wuxuu xalaal ku sii noqonayay amendment-ka la sameeynayo waa saan ku sheegay Puntland idan meesha ka maqan
marka haddii markii la doonayo marka in dastuur xalaal la sameeyo waxaa wanaagsan marka dastuurkii hore in la soo celiyo oo baarlamaanka ansixiyo midkan ku meel gaarka oo 4.5 sheegaya meesha uu ka baxa taasna marka waxay keenaysaa marka waxa weeyaan yani waxay keenaysaa isbedel inuu ku yimaado waxa weeye nidaamka dowliga waddanka Soomaaliya inuu ku yimaado keenaysaa arrinta kale oo u baahan oo ku qoran waxay tahay wuxuu taabanayaa waddanka wuxuu guuraya waxa loo yaqaanaa presidential system of governance uu guuraya oo macnaha parliamentary system of government uu ka guuraya nidaamkan baarlamaaniga dowladdan baarlamaaniga uu guuraya baarlamaan madaxweyne uu guuraya macnaheedu waxay tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in hal mar la dooranayo waa hal mid isku yihiin in hal mar la dooranayo macnaha waxa weeye idan waxa meesha ka baxaysa 4.5 ka baxaysa waxa ka baxay macnaha qabaalid meesha lasu dooranayo ka baxaysa waxa ka ayaa iyada meesha ka baxaysa marka haddii marka nidaamkaas loo guurayo oo nidaam yani isbedel weyn marka wuxuu ku imaanaya dastuurku ku imaanaya marka waxaa loo marka inay baarlamaanku ansixiyo inay civil society ka qayb qaataan in xataa cod la weydiiyo qofka macnaha yani Soomaaliga muwaadinka ee jamhuuriyadda xorta ku nool intaas marka ayay ka dhiman tahay haddii marka inta aan loo helin macnaheedu waxaa waaye waa jabhad meel fadhiisto waxa xariiqda waaye jabhad intay meel fadhiisto waxa xariiqday noqonaysaa marka waddanka jabhad wuxuu kunta waddanka waa dal macnaha waxa weeyaan oo waxa weeyaan xor ah oo runtii adduunka aqoonsan yahay xukuumaddan waa xukuumadda adduunka aqoonsan tahay oo macnaha United Nations laga aqoonsan yahay oo Arab League laga aqoonsan yahay African Union laga aqoonsan yahay marka si jabhadahan uma rabi karaan si jabhadnimo uma rabi karaan marka nidaamkaas marka waa inuu marka waxa loo baahan marka nidaamkan in la xalaaleeyo marka oo marka yani baarlamaanka uu maro civil society ay ka doodaan khubaro loo saaro committee loo saaro kadib ay turxaan bixiyaan kadib waddankii lasu keeno ama gobolada waqooyi macnaha yani ugu qanciyay inay Soomaaliya dib ugu biiraan ama la fasaxaba xataa go-aan lagu gaaro la fasaxa haddii go-aan lagu gaaro waayo oo dad Soomaaliga go-aan ku gaaraan markaasaa marka baarlamaanka markaasaa marka dastuur sax la samayn karaa laakiin intay gobolada waqooyi maqan yihiin ama Puntland ay surugsan tahay ama baarlamaankii macnaha waxa weeyaan wuxuu ku marinaya yani waxa weeyaan xeerarkiisa baan samaynaa yani waxa weeye dirshadaan kasoo gelaya war ma shaqaynaysa waxa weeyaan waa nidaam dhan oo macnaha dowli ah oo u baahan macnaha waxa weeye constitutionkan wax laga bedelo u baahan waayo kan hadda waddankan aan joogo Kenya haddii qodobadan oo kale waxa waaye referendum loo qaadaya referendum suurtagal xataa baarlamaanka xataa kama qaban kara xataa baarlamaanka waxba kama qaban kara waa in referendum la aado waayo oo dadka la weydiiyey oo habka kaliya lagu bedeli kara dastuurka laakiin xataa baarlamaan intuu fadhiista baarlamaanka xataa kuma samayn kara marka arrimahan marka ma ahan arrimo sahlan saa moodaysan waa arrimo aad u culus weeyaan waa arrin aad iyo aad u culus oo runtii aadan يعني إني سيفود قدما تأي صورة قلهين وأهرين باهن إن معنا وحوي سيد دستوري اللي وجهه وأهرين باهن إن سوى وضع الله وحلو حلي وأهرين باهن إن ذلك كلامنا لسوسو علي وأهرين باهن إن أمد الصومالي عديسة وأهرين باهن إن خبر الصومالي يكدودان وأهرين باهن إن ذلك الصومالي معنا وحوي يكفديستان يكدودان يكبارك يكدودان لكن إن وحيابها بوستيف كقرن حوي إن ذلك الصوماليات أي آذان دور الشعب يقفها أرين آد قرح بدون وايد حتى أنا إلا الله يعني بوست أوف برايم مينستر وأرين فعلا وأركان هو معنا مدحوين كوين السمية أرين آد ونكسوه وأنا أركتي قار كويان لكن وحاسو إذا وحاكوري معنا وحوي النظام الدستوري جها الدستور كودن كلها أرتلس كوافقة Soomaaliya dastuurkeedii wanaagsanaa oo fiicnaa oo runtii had ilaa hadda ku dhaqmaan soo laalaalay wali ku dhaqmaan maxay way ka baarmila yihiin wax kale oo badil kale ma haystaan dastuurkan cusub oo macnaha yani oo taag naftiisa ah oo waxyaabo badan oo galaanay waxyaabo nusqaalo badan buu leeyahay aad iyo aad u fara badan oo runtii waxaad moodaa yani hatta markii yani waxaa jira yani qodobo u baahan in laga doodaba musigooni u taabanaya akhlaaqiyadka iyo qaar si gooni u taabanaya macnaha waxa qaranimada iyo qaar si gooni u taabanaya macnaha waxa weeyaan sharafta ummadda Soomaaliyeed waxa soo in laga dooyo baahan tahay oo macnaha aad loogu fariistaa oo marka dastuurka lagu saleeyo yani dadka diinta islaamka islaamka in lagu saleeyo loo baahan inkastoo wax badan diinta ay ka qaateen si kastaba arrinta haata bayaankan waa bayaan oo political statement weeyaan waa bayaan runtii yani sida loo dhahay sida loo yiri aan u fududayn uma fududa sida loo dhahay
marka waqti badan ha isaga nominina waxaad yani oo yani baarlamaanka